بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu fiirinaynaa maanta si aynu flash USB ga aynu ugu bedelno booting markaas CMD dad galaysa waxa qoraysa disk parties watan hoos ku qoran iyadoo English now type disk part okay wuxuu soo saarayaa shaashadan kale oo madow iyadana marka waxa leedahay list disks yani diskiyada E3 kadib waxa leedahay waxa dooranaysa diskiga aad markaa u baahan tahay disk 1 oo kala hadda aynu u baahanahay kan sare waa hard drive ki caadiga ah oo lagu keenay computerka waxa leedahay select disk 1 select disk 1 marka tiraadid waa clean garaynaysa clean baa dhahaysa kadib lana soco faylka yani waxa sheegaya USB flash ta isticmaalisid waa inay noqotaa yani flash 8GB must way in 8GB noqoto create partition baa leedahay yani marka waxa leedahay create partition primary marka create partition primary aad tirahdid wuxuu ku sameynayaa partition primary kadib select partition 1 baa leedahay select partition 1 marka tirahdid waxaad leedahay marka active dheh active marka tirahdid formatkiisa si hadaba waxa leedahay format fs equal ntfs enter taa gartaa percentage kaas marka uu dhamaado ma aha yani inuu hadda buuxsamo percentage ku laakiin uu socdaa 100% markuu gaaro ayuu dhamaanayaa iminka hadda waa boobsiinayna oo in ka boodayna 99% wakaas marka hadda waxa ku haray in aad yani exit garaysid oo ka baxdid kaliya now hadda waxa weeye way shaqaynaysaa successful oo jeedas waxa leedahay exit baa leedahay marka exit marka tiraadid uu ka saaray hadda waxaad ku shuban kartaa waxaad doontid baa ku shuban kartaa waa bedelan tahay sidoo kale Windows kaagana waa ku shuban kartaa oo caadi uu kugu shaqaynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.